halkani waa BBC oo aad ka dhageysataan mujadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. kulan wacan wanaagsan dhageystayaal idilhantiinba melbo aad joogtaan waa subaxnimo axada oo taariikhdu ku beegan tahay 3 Juun ee sanadka 2018. arrimahan barnaamijka subaxnimo idinku heynana waxaa ka mid ah dalalka warshadaha ku horumaray ee G7 oo cambaareeyay go'aanka Mareykanka ee canshuurta biraha. Ra'iisul ku-xigeenka Talyaaniga uu sheegay inuu dhamaaday waqtigii muhaajiriinta sharci darrada ku joogay waddankaasi dadka soo barakacay dagaalkii Tukarraq oo la sheegayo inay ku dhibaataysan yihiin deegaanada Puntland. atirshada caanka ah ee Priyanka Chopra oo booqatay xeryaha qaxootiga ee Rohingya waxay ka warantay dhibaatooyinka haysta dadkaasi. waxaa kaloo aad maqli doontaan 8 saac 7 saac oo habeenimo guriga lagu soo galahayaa markaas guriga lagala baxaya doorka kaymaha lagu geynaya markaas guri madaxa laga saaraya oo madax furasho lagu weydiinaya. waa qaar kamid ah qaxootiga Dadaab oo ka cabanaya burcad ay sheegeen inay dhibaato ku hayaan iyo dabcan ciyaarihii aad ku maqli doontaan qabanqaabada koobka adduunka. barnaamijku waxaa soo saaray Cabdiraxmaan Xaaji Cadow waxaase marka hore ku horumarinaa warkii dunida iyo Cabdinaasir Saxan Saxo. mahadsanid Bashiir. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka toddobada ah ee xagga warshadaha horey ugu maray ayaa si adag u dhaleeceeyay siyaasadda guracan ee baayac mushtarka ee madaxweyne Trump xilli ay shir hordhac ku lahaayeen dalka Canada. xogayaha maaliyadda Mareykanka Steve Mnuchin ayaa difaacay go'aanka xukuumadda Washington ee ku kordhisay canshuurta laga qaado badeecooyinka loo dhoofiyo Mareykanka qaarkood, isaga oo dabuubtiisa intaasi ku daray in Trump uu si buuxda arrintan uga hadli doono marka la gaaro shir madaxeedka G7 oo la filayo inuu dhaco toddobaadka xiga. dhanka kale madaxweyne Trump ayaa difaacay go'aankiisa isaga oo qoraallo isdaba joog ah oo arar ah soo dhigay dagalkiisa Twitter-ka, wuxuuna sheegay in Mareykanka muddo sanooyin ah laga maroorsan jiray faa'iidooyin badan. waxa uu intaasi ku daray in la dargafiyey daryeelka dadka dalkiisa. booliska dalka Nicaragua ayaa soo afjaray xaalad hareereyn iyo go'doon ah oo ka jirtay goob kaniisadda oo ay galeen koox ka tirsan xisbiyada mucaaradka, kadibna ay isku gadaameen booliska rabshadaha ka hortaga iyo kooxo waranlayaal ah oo dowladda taageersan muddo dheer. dhaqaatiirta ayaa loo ogolaaday inay dhayaan dadka dhaawacyada ay soo gaareen kadib rabshadihii ka dhacay magaalada Masaya. habeenkii saddexaad oo xiriir ah ayay mudaharaadyo ka dhacayaan meel u dhow xafiiska golaha wasiirada ee dalka Urdun, iyada oo ay dadka codsanayaan in la rido ra'iisul wasaare Hani Mulki. waxa ay banaanbaxayaasha ka biyadiisan yihiin hindisa sharciyeed cusub oo ku saabsan canshuuraha oo ay soo gudbisay xukuumadda ra'iisul wasaare Mulki, kaas oo qayb ka ah barnaamij guntigiijis ah oo uu soo jalaaday sanduuqa lacagta adduunka ee IMF-ta. ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Talyaaniga Matteo Salvini ayaa meel fagaara ah ka sheegay in waayihii dhiisha iyo haruubka loo buuxin jiray dadka soo galootiga ay isku dhamaadeen. hogaamiyahan xisbiga midigta fog ee afkaaraha mutaxan ayaa sheegay in dadka badaha soo jibaaxaya ee Talyaaniga ku soo xarig furtay ay boorsooyinkooda xirxirtaan. xisbiga mucaaradka ee dalka Mali ayaa ugu baaqay in ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu iscasilo kadib markii ciidamada ammaanka ay u dhaceen xarunta dhexe ee xisbigaasi oo ku taala magaalada caasimadda ee Bamako. dacwad oogaha guud ee dalka Sacuudiga ayaa sheegay in la xirxiray ilaa 17 qof bishii la soo dhaafay, kuwaas oo lagu eedeeyay inay waxyeeleynayeen amniga qaranka. war murtiyeed la soo saaray ayaa lagu sheegay in 8 ka mid ah dadkaasi la sii daayay, balse 9 kale oo ay dumar ka mid yihiin ay weli liinta ku cabayaan xabsiga. ugu dambeyntiina diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa garaacay 2 bartilmaameed oo ku yaala magaalada Gaza, waxyar kadib markii 2 saaruuq lala beegsaday koonfurta Israa'iil, kuwaas oo laga gamay dhulka reer Falastiin. ma jirto faahfaahin ku saabsan in uu khasaaro dhacay iyo in kale. Bashiir saxaad buu mahadsan dhageystayaal. iminkan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha kale ee barnaamijka. waxaa dhageystayaal sidaad maqlayseen baa shir ay dalalka markaasi Canada ku lahaayeen wadamada warshadaha ku horumaray ee la isku yiraahdo G7 ayaa cambaareeyay
go'aanka dowladda maraykanka ay ku canshuurayso biraha loo iibgeeyo dalka maraykanka. shirkan oo ay martigelisay dowladda Canada ayaa wasiirka maaliyadda ee waddankaasi Bill Murray waxa uu sheegay in tallaabadan ay qaaday dowladda maraykanka ay tahay mid markaasi wax burburinaysa. faafahinta warkaasi waxaa inoo haya Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. shirka ay yeesheen wasiirada maaliyadda ee wadamada la isku yiraahdo G7 ayaa ku soo gabagaboobay cambaarayna ay u soo jeediyeen go'aanka Mareykanka ee ah canshuurta uu ku soo rogay biraha iyo aluminiumka dalkiisa la soo geliyo. wasiirka maaliyadda Canada Bill Murray iyo dhigiisa dalka Faransiiska waxay sheegeen inay aad uga xun yihiin go'aankaasi Washington ka soo yeedhay. mar uu ka hadlayay shirkaasi G7 xiritaankiisa, wasiirka maaliyadda Canada Bill Murray wuxuu yidhi, What did we ask a Treasury Secretary to do? waxaynu weydiinay xogyaha maaliyadda ayaa waxay tahay in dhammaanteen aynu rajaynayno inuu fariin inaga gaarsiin doono, taasi oo ah inaan ka xunnahay oo aynu ka shallaynayno tallaabada Maraykanka. waynu ka walacsannahay oo Maraykanka ma ahan mid wax saxaya. waxayna ila tahay anigu in fariintan uu u gudbin doono xukuumadda Washington. My sense is that he's going to take that message back to Washington. wasiirka maaliyadda ee Faransiiska Bruno Le Maire ayaa wuxuu sheegay inay maalmo ka xigaan in uu dagaalka ganacsiga ku bilowdo Maraykanka maadaama uu maamulka Trump uu canshuur ku soo rogay biraha iyo aluminiumka. Mr. Le Maire oo gabagabada shirka wasiirada dalka G7 ay ku yeesheen Canada ka hadlay ayaa wuxuu sheegay Washington in looga baahan yahay inay xiisada dejiso inta uu midowga Yurub tallaabo aarsi qaadin. wasiirka maaliyadda Maraykanka Steve Mnuchin ayaa cambaarayn kulul kala kulmay wasiirada maaliyadda dalalka G7 iyagoo dhammaan dalalkaasi ay ka cadhoodeen tallaabada Washington ay ku soo rogtay canshuurta. Mr. Mnuchin wuxuu sheegay inuu go'aanka madaxweyne Trump uu yahay mid sax ah. I don't think in any way the US is abandoning its uma malaynayo si walba ahaataba in Maraykanka uu ka baxayo doorkii hogaamineed ee uu ku lahaa dhaqaalaha adduunka. sidaasi si ka duwanna waxaan u malaynayaa inaad wada ogtihiin in Maraykanka ay ka jirto dadaalo la doonayo in dib u habeen lagu sameeyo canshuuraha Maraykanka, taasi oo saameyn badan ku leh dhaqaalaha waddanka Maraykanka. marka waxay la tahay in doorkan ku leenahay dhaqaalaha ay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee uu higsanayo madaxweyne Trump. on the economy, which is one of President Trump's major objectives. dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa boggiisa Twitterka ku qoray inuu fahmay go'aankiisa ah in canshuur la soo rogo ay tahay mid uu Maraykanka sanado badan xaq u lahaa inuu xilli hore uu soo rogo, dalal badanna ay ku caanamaaleen. Maraykankuna uu ganacsi ku waayi jiray $800 bilyan. xogayaha ganacsiga ee madaxweyne Trump Wilbur Ross ayaa waqti xaadirkan ku sugan Shiinaha si uu ugala hadlo sidii loo soo afjari lahaa heshiiska wax soo saarka beeraha ee dalka la soo geliyo. Cabdiraxmaan Xaaji Cadow aad buu mahadsan yahay. markana wararka Soomaalida haddaynu u guda galno, iyadoo weli xiisada ay ka taagan tahay deegaanka Tukarraq ayaa waxaa deegaanada Puntland soo gaaray dadkii ka soo barakacay dagaalka Somaliland iyo Puntland ku dhex maray halkaasi. dadkan ayaa waxaa la sheegayaa in ay markaasi ku sugan yihiin duruufo adag. haddaba wariye Axmed Caawiil oo Garowe jooga ayaa qaar ka mid ah dadkaasi kula kulmay magaalada Garowe oo warbixintan inooga diyaariyay. dadkani ka barakacay colaadii Tukarraq ayaa waxaa la soo daristay daruufo kala duwan oo xagga nolosha. qaarkood ma haystaan hooy ay ka galaan dhaxanta, qaarna ma heli karaan cunnada la quuto. waxa ay ku soo aadaysaa iyada oo bil Ramadaan lagu jiro. Aamina Siciid iyo Faadumo, laba hooyo oo ku sugan meel aan ka fogeyn tuulada Buuro Wadal, waxa ay sheegeen in ay xaalad adag ay ku sugan yihiin. Tukarraq waan ka nimi waan soo qaxnay ma wada rata carruurtaydi meel ay ogaanaysa, carruurtii meel ay noo ogaanaysa, hooy ma haystaano, biyo ma haystaano, xawa ma haystaan, gogol ma haystaan. de maxaa waad wada sidee ahayd noloshiinu markii xagga aad joogteen? nolol wanaagsan baan ku noolayn, dad bini'aadan oo guryahoodii jooga waan qofka digaad aad joogyahay noloshiisu waa iska fiican tahay. laakiin qofku markuu soo qaxo kale mar walba wax badan buu dareemayaa. maama adigoo magacaaga ku bilaabaya. deegaanka Tukarraq baan ahaa. dadkii Tukarraq deganaa baanu ahay. dee wax kasta baan ahaane waxaan ahay dad deegaankoodii iyo guryahoodii iyo haddii ala biyahoodii jooga. nin walba meel kasta ha u gaadhee. eelkadeedii waxaa nagu dhacay laba qax. doorkii horena waanu qaxnay, doorkana xaggan aanu u soo qaxnay. waad u jeedaa marka dee biyo iyo baad iyo haabo iyo intaba waanu u baahanay, hoy iyo intaba waanu u baahanay haddii nala siinayo. oday maxamed waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka. waxa uu baaq u jeediyey bulshada Puntland si loo caawiyo dadka kala duwan ee ka soo barakacay dagaalkii Puntland iyo Somaliland ku dhex maray deegaanka Tukarraq. dareenkaygu waxaan aad u dareemayaa dadku inuu aad u jilicsan yahay, caawimana u baahan yahay in la taageero. ma garata waa dad markii horeba ahaa dad aan dee magaalo weyn ku noolayn oo hantidoodu ayan badnayn, oo markii horeba qaxootiga iyo abaaraha bay u badnaayeen. shacabweynaha Puntland waxaan odhan lahaa, dadka walaalaha oo 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 wala
u malayn maayo dee inay wax kala hadhayaano haddaba meelo badan bay wax ka waxwaxeeyaan itaalkooda xil weyn ha la iska saaro marka UN-ka hadday tahay iyo hay-adaha kale iyo hadday tahayba waxaanu leenahay fadlan dadkaas soo caawiya tan iyo markii dagaaladu ay ku dhex mareen Puntland iyo Somaliland deegaanka Tukaraq waxaa ka barakacay dad lagu qiyaasay 150,000 oo qoys sida ay sheegeen qaar ka mid ah hay-adaha gargaarka. axmed cawilaad buu mahadsan yahay. haddaba dhegeystayaasha qodobkaasi kaga soo raayay dhiibtay barta Facebook aynu ku leenahay waxaa ka mid ah cabdiciis cabdulaahi oo jooga degmada beled xawe gobolka Gadow waxa uu yidhi dhibaatada colaadda laga dhaxlo wata ha laga waantoobo buu yidhi wixii hore inoogu dhacay dadka colaadda Tukaraqna ku barakacay aad baan uga xumahay waana markaasi in la garab istaaga ayuu leeyahay. dhegeysta kale isna magaciisa ku sheegay Leeba Maxamed Sharwac ku nool degmada Cabudwaq oo markaasi ka tirsan Galgaduud waxa uu yidhi dadka ka soo barakacay dagaalka Tukaraq ay ku dhibaateeyeen deegaanada Puntland runtii aad baan uga xumahay waxaana maamulka Puntland ugu baaqayaa buu yidhi inay dib u dejin u sameeyaan dadkaasi oo la garab istaago halka wali dhegeystayaal BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba وهاجا dhegeystayaal halka wili aad nagala socotaana waa BBC markana dhanka ay wadanka Talyaaniga ra'iisul ku-xigeenka cusub ee wadanka Talyaaniga Matteo Salvini ayaa meel fagaaraha waxa uu ka sheegay in uu dhamaaday waqtigii wanaagsanaa ee muhaajiriinta sharci darrada ku jooga wadanka Talyaaniga Mr Salvini oo hogaamiyaha xisbiga afkaartiisu ay ka soo horjeeda muhaajiriinta ayaa waxa kale uu sheegay in kuwa cusub ee imika markaasi imaanaya ay shandadahooda diyaarsadaan oo ay markaasi isaga ambabaxaan buu yiri wadanka Talyaaniga Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayaa markale ka waramaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka cusub ee Talyaaniga Matteo Salvini ayaa sheegay inuu dhamaaday waqtigii u wanaagsanaa dadka qaxootiga ah Mr Salvini oo ah hogaamiyaha ururka siyaasadeed ee sida weyn uga soo horjeeda dadka soo galootiga ee League wuxuu sheegay dadka cusub ee soo galaya Talyaaniga inay boorsadahooda xirxirtaan hadalka Salvini ayaa wuxuu ku soo beegmay maalin kadib markii ay qaxooti ka badan 150 ay ciidamada gurmadka badda ka soo badbaadiyeen kuna dejiyeen Sicily Mr Salvini wuxuu hadda booqanayaa jasiiradda ay dadka soo galootiga intooda badan ku soo degaan iyaga oo doonaya inay Talyaaniga qaxooti ku noqdaan dadkaasi oo dalalkooda uga soo carara dagaalo cadaadis iyo gaajo wadamada ay dadka badankoodii ka soo jeedaan ay yihiin waqooyiga Afrika iyo bariga dhexe ra'iisul wasaare ku-xigeenka kale ee Talyaaniga Luigi Di Maio oo ah hogaamiyaha ururka dhaqdhaqaaqa 5 Star ayaa wuxuu taageerayaashiisa u sheegay inuu xoog saari doono una ka shaqayn doono arrimaha samafalka muran siyaasadeed oo toddobaadyo ka taagnaa dalka Talyaaniga ayaa waxaa lagu soo afjaray in ra'iisul wasaaraha dalka uu noqdo Giuseppe Conte iyadoo laba urur oo siyaasadeed oo ku loolamaysay siyaasadda dalka ay ku guuldareysteen inay soo dhisaan dowlad wada jir ah Cabdiraxmaan aad buu mahadsan yahay markana waxaa baryahan dambe la sheegay in xerada qaxootiga ee Ifatu ee xeryaha qaxootiga ee Dadaab ay ku soo bateen dad la sheegay inay dhac u geystaan dadka gaar ahaan ganacsatada ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab dadkan ayaa waxaa la sheegay in dadka ay afduubaan ay geeyaan keymaha iyagoona ugu dambeyn ka dalbadan lacag madax furasho ah oo ay markaasi ka qaataan dadkaasi haddaba kulan looga hadlayay sidii xal looga heli lahaa dhibaatooyinkaasi ayaa lagu qabtay xerada qaxootiga ee Ifatu waxaana ka soo qayb galay ganacsatada xeradaasi culimada diinka iyo waxgaradka xerada Cabdullaahi Cismaan Xaaji oo ah gudoomiye ku-xigeenka xerada Ifatu ayaa haddaba caqabadaha haysta waxa uu uga waramay Kowthar Maxamed oo BBC-da ka tirsan walaalay guud ahaan markaan ku dulmaro runtii baryaha dambe waxaana haystay wax laga argagaxo oo aqliga bini'aadanka ka weyn ma garan 8 saac 7 saac oo habeenimo guriga lagugu soo galahayaa niman hubaysan baa guriga kuugu soo galahaya markaasaa guriga lagaala baxahaya doorka kaymaha lagu geynaya markaasaa guri madaxa laga saaraya oo madax furasho lagu weydiinaya hadii ma aragtay madax furashada aad bixin weydana hadda waxa weeye waa lagu dilahayaa waad galbanaysaa way bal waxaad noo sheegtaa burcad soo baxday noocee bay horta ay dhaca u geystaan yaysa u geystaan walaalay burcadani waxa weeye horta markaan aan ku sii faahfaahiyo 2014 bay sidan oo kale arrin ay dhacday rabbi tuug fara badan iyo dadaal fara badan oo la sameeyay ilaahay waa uu nagu guuleeyo way iska baabaaday ma garatay marka hadda ayay dib u soo noqotay waxaa la ugaarsanayaa oo si caqliga ka baxsan loo ugaarsanayaa dadka ganacsatada ah ma aragtay shilimada haysta kaymaha ma aragtay dhexdooda la geynaya halkaas ma aragtay yaa lagu qasbahaya in ma aragtay madax furasho ay u bixiyo waa arrin nasiib darro leh qof muslina oo sooman oo ahlu tawxiid aba
8 saac oo habeenimo guriga loogu dhacaya oo niman shuftaa oogu dhacayaan wallaahi waa nasiib darro inteeda la eg waxaa weeye wax laga argagaxo oo la yaab leh oo runtii wax aan ku tilmaanna aanan garanaynin baa meeshan ka jira marka cabashadiina miyaad u gudbiseen ciidamada ammaanka suga oo miyaad ribood geyseen wallaahi waxaan dhihi karaa waddanka dawlad baa ka jirta dawladdu way og tahay wax la moogan yahayna ma aha falkan markii saddexaad uu dhacahayo wax qarsoodi ahna ma aha meel aan u qaxnana ma garanayno laakiin haddii ay sidan ku sii socoto laa shakka waxaa lagama maarmaana khasab u noqonaysa inaan qaxi doono marka meeshii kale aan u qaxi karaan u qaxaynaa kulankaad maanta yeelateen oo lagu arrinsanayay arrintan yaa ka soo qayb galayo maxaad isku afgarateen ganacsatada ka soo qayb gashay culimaa udiinka ka soo qayb galay bulshada noocyadeeda kala duwan baa ka soo qayb galay marka dadku way fara badnaayeen runtii dareen xoog lana waa laga muujinayay laakiin dhibka jira wuxuu yahay ilaa hadda wax laga qabtay mabaleba ilaa hadda wax laga qabtay male waxaanu isku afgarannay in maaragtay shuftadan la iska ilaaliyo oo la isweheshado oo la iska warhayaanu maaragtay yaanu ku wada hadalloonu ku ballanay waxaa weeye habeen walba nin baa loo dhahayaa dariskaaga markaasaa jirdilkii iyo dhibka loo geysanaya cabaadka ka yeedhayaad yaabaysaa asagoo cabaadayaa lala baxaya oo cid u soo hiilinaysa iyo cid ka ridaysa midna toona aanay jirin waxaan codsan lahayn dawladda Kenya iyo middan maamul goboleedka waddanka MB baa laga soo doortay oo maaragtay jooga dawladda waxaan ka codsanaynaa hawlahan inay si degdeg waxay ooga qabato waxa inta aanu naf go'in wax hadda noo haray oo aan nafgo ahayn male kaasi wuxuu cabdullaahi cismaan xaaji oo ah gudoomiye ku-xigeenka xerada Ifatu ee xeryaha qaxootiga Dhadhaab oo Kowthar Maxamed uga warramayay dhibaatooyin ay sheegeen inay ku hayaan dad burcad ah oo markaasi ka howlgala xerooyinkaasi halka weli aad nagala socotaan dhageystayaal waa BBC ma doonaysaa inaad ka qayb qaadatid abaalmarinta laanta af soomaaliga ee BBC ee ay ku baadigoobayso gabdhaha ugu gabayga wanaagsan sanadkii tegey waxaa abaalmarinta ku guulaysatay deeqa nuux yunis dhaqan suubin suugaan cudoon sadar la miisaamay mugti soohan mahmaasar tiran hadal sarbeebaysan sahan dhowrsan saadaalin dheer saba barwaaqaysan sibraar buuxa sahay meelmaroo socoto loo kaydsho haan saable surrad iyo alool golo la saynsaabay aroos sacable gaaf iyo salaan sawd mashxaradeedka sac la maalo adhi soofa iyo sumadda geeleenna sinji gaara soomaaliyay waynu sidanaayey yaan la suufin waa sawracaan laga salguurayna haddaba waa la gaaray xilligaadii adigana ma tahay gabarda'deedu dhaxayso 16 ilaa 35 jir abaalmarintan waxaad uga qayb qaadan kartaa gabay aad adigu laftirkaaga tirisay warbixinnada la xidhiidha arrintan sida looga qayb qaadan karo tartanka iyo weliba shuruudaha waxaad ka heli kartaa barteenna bbcsomali.com waa hagaag dhegeystayaal haddaba gabdhaha markaasi doonaya inay ka qayb qaataan tartankaasi waxaa furmay qabashada araajyada tartanka gabayada laanta afka soomaaliga ee BBC-da waana sanadkii labaad oo xiriir ah oo la qabto tartankan oo lagu magacdaray tartanka gabayada ee dumarka da'da yar ee BBC wuxuuna markaasi u furan yahay haweenka da'doodu u dhexaysa 16 ilaa 35 jir waxaana laga doonayaa hal abuur gabay ah oo ay markaasi iyagu asal ahaan ay u leeyihiin oo ku qoran afka Soomaaliga haddaba madaxa laanta afka Soomaaliga BBC Cabdullaahi Sheekh Cabdirasaaq ayaa sheegay in ujeedka markaasi ay tahay dhageystayaasha lagu soo bandhigo codad cusub iyo weliba sidoo kale gabayo tayo leh markana waddanka Itoobiya waxa muddooyinkii dambe dalka Itoobiya ka dhacay isbeddello siyaasadeed kuwaasi oo dadka qaar ay sheegeen inay yihiin kuwo xawli ku socda tan iyo intii xafiiska yimid wasaaraha cusub ee waddanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed isbeddeladan ayaa waxa u dambeeyay xaaladii degdeg ahayd ee laga qaaday waddankaasi iyo sidoo kale dowladda Itoobiya oo cafis u fidisay maxaabiis siyaasadeed oo qaarkood ay ku xukunaayeen dil toogasho haddaba su-aashii la isweydiinayo waxay tahay ma laga yaabaa in markaasi Itoobiya ay ku sii hana qaado isbeddelada haatan oo markaasi uu dhaqan gelinaya wasaaraha cusub ee waddanka Itoobiya su'aalahaasi kuwo kale ayaa waxaa weydiiyey Dr. Ibrahim Faarax Bursilid oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika bismillaah Bashir waa lagu tilmaami karaa ilaa iyo intii la doortay ra'iisul wasaaraha cusub ee hadda dalka haya nooca isbedel ee la sameeyay markaad fiirisid si gaar ah marka siyaasadda loo fiiriyo isbedelo qayr caadi ah dhacay wadada sidan ma sii fududaan kartaa oo sidan ku sii soconaysa waa su'aal kale meesha taala laakiin
ilaa hadda waxa dhacay waa tallaabooyin cadcad oo wanaagsan isbeddelna lagu tilmaami karaa. ma ku muuqataa tallaabooyinka dowladda ilaa imika ay qaaday inay dejin karaan kacdoonnadii ka taagnaa waddankaasi? ma hubno in mar walba rajo la muujiya Bashiir way wanaagsan tahay markaad fiirisid isbedelada dhowrka tallaabooyin gaara dhinaca hadda hay-adaha amniga marka la fiiriyo madax badan oo saraakiil ahayd oo hal reer u badnayd bixintoodii isku shaandhayn xataa ilaaladii madaxtooye marka la fiiriyo ra-iisul wasaaraha sida gaarka u ilaalinaysay qaabka uu u wajahayay maamul goboleedada kala duwan siyaasadiisa arrimaha dibadda oo amni kasokuu ku wajahan saaxiibtinimo cusub iyo inuu bal la jaan qaadi karo gobolka qaaradda iyo beesha caalamkaba tallaabooyin fiican oo cadcad weeyaan. ma kula tahay marka in isbedeladan iminka ka dhacay waddanka Itoobiya ay u horseedi karaan hanaan dimuqraadiyadeed oo ka hanaqada dalkaasi? dimuqraadiyad marka la fiiriyo arrimaha caalamka waxaa caadiyan lagu jaangooyaa ilaa 5 qarni 500 sano dambe wax loogu talagalay inay ku samaysmaan wax sanad iyo 12 sano midna ma ah laakiin waa la bilaabi karaa. ma huba in doorasho qof iyo cod ah oo dadka reer Itoobiya qofka ay rabaan ay soo bixin karaan ilaa rajadu ay gaarto dadka laga tirada badan yahay ama koonfur ha noqdeen ama gobolada kale ka baxsan Tigreega ama xaaradii Oromada ha noqdeen inuu gaarin qofka damiirkiisa iyo dareenkiisa uu inuu ku dhiirado inuu u istaagi karo ra'iisul wasaare ilaa la gaaro xilli way qaadan doontaa laakiin waxaad moodaa hadda in wax uu ka bilaabay ra'iisul wasaaraha cusub wadadii arintaas lagu gaari lahaa. miyay jiraan marka tallaabooyin dheeraad ah oo aad isleedahay waa loo baahan yahay in dowladda ay qaato? waxaa la rabaa in la miisaamo siyaasadda arrimaha gudaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda. siyaasadda arrimaha dibadda waxay caadiyan ka bilaabataa meesha ay arrimaha gudaha ay ku dhammaadaan. ra'iisul wasaaraha cusub wuxuu u baahan yahay qaabka caasimadda Addis Ababa kaliya iyo qowmiyadda Oromada uu ka dhashay gadoodkana keentay isbedelan ay ku yimaadeen kaliya aan la fiirin. waxaa la rabaa in maamul goboleedadana si siman oo miisaaman oo balanced ah loo fiiriyo. waxaa loo baahan yahay qolyaha laga tirada badan yahay laakiin xukunka ba'satay ee 27 sano dalka haysata laftigooda inaan lagu degdegin in hal mar la wada bedelo. waxay u baahan tahay Itoobiya inay gasho dib u heshiisiin dhaba wada hadal siyaasadeed xukunkana la daadejiyo. Addis Ababa aan wax dambe laga xukumin goboladii inta la aado maamul goboleedadii talada wax laga siiyo xisbiga talada hayana bal mar labaad intuu fariisto in aragti cusub uu dalkii u dejiyo gobolka sidii ula tacaamuli jireen laftigeeda ay wax ka bedelaan beesha caalamkana ay ogaadaan in sidii hore aanay wax u socon doonin oo markaan la rabo in ay ogaadaan sida gaara in la wada fiirinayo marka shaqo badan u taal. ugu dambeyntii marka waa maxay caqabadaha aad isleedahay oo ay soo wajihi karaan ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya? kuwa ugu horeeya waxaa weeyaan asaga la fahantiisa amnigiisa muhiima. culays wuxuu ka imaan karaa ciidamada oo aan la garan doonin inay isku day afgembi samayn doonaan. siyaasadda arrimaha gudaha waxaa kow ka ah shaqo abuur dadka in loo sameeyo. waxaa loo baahan yahay in qowmiyaad badan oo la ba'saday aad gabadfal kheyro caadiyana loogu sameeyey in lagu qanciyo in Itoobiyadii hore aysan jirin Itoobiya cusub ay bilaabanayso. dhinaca arrimaha dibaddana waxaa loo baahan yahay dagaalka Eritrea la xalliyo. Soomaaliyada ay iska walaaqan jireen ay ka joogaan oo ay laba dal oo darisa oo walaala oo saaxiiba in la wada noqon karo laga wada xaalo. waxay kaloo u baahan yihiin waxyaabo badan oo ay ka rabeen hamigooda inay dibadda ka sameeyaan inta iska halmaamaan markaan gudahooda inay isnadiifiyaan oo ay gudaha wax ka fiiriyaan in badan. Dr. Ibrahim Farax Bursaliid oo ka faalooda arrimaha Geeska Afrika oo iga warramaya waxyaabaha markaasi laga fili karo isbedeladan imika dowladda Itoobiya ay ka hirgelinayso dalkaasi. markana tirashada caanka ee dhanka aflaanta Hindiga Priyanka Chopra oo Soomaali badan ay ku yaqaanaan jilista aflaanta Hindiga ayaa waxay haatan bilowday in uu ololeyso xuquuqda carruurta iyadoo dhawaan booqatay xeryaha qaxootiga Rohingya ee waddanka Bangladesh. Priyanka Chopra ayaa sidoo kale doonaysa in wax laga qabto dhibaatooyinka haysta qaxootiga Rohingya ee ku soo qaxay dalka Bangladesh. warbixin umuurtaasi ku saabsan waxa inoo haya Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. I have a gentle heart. I feel very emotional. waa Priyanka Chopra oo dad badani ay uga barteen madadaalada balse haatani waxa ay u weecatay howlaha samafalka. Priyanka waxa ay tiri anigu qalbi wanaagsan ayaan leeyahay aad ayaan u dareemaa xaaladaha gaar ahaan carruurta ay ku sugan yihiin sababtoo ah carruurta wax ay galabsadeen ma lahan wax door ahna kuma laha waxa dhacaya oo runtii carruurta waxba ma oga. waxaa keliya oo ay carruurta og yihiin in ay ku nool yihiin nolol sileecaha. Priyanka Chopra oo ah safiir sharafeed hay-adda UNICEF u qaabilsan xuquuqda carruurta waxay booqatay xerooyinka qaxootiga Rohingya ee ku yaala Bangladesh.
The Rohingya refugee crisis is masiibada qaxootiga Rohingya waxay ka mid tahay masiibooyinka bani'aadanimo ee ugu weyn oo adduunka ka dhacay waqtiyadan dambe. Carruur badan ayaa xerooyinkaasi ku sugan oo aan haysanin fursad ay ku helaan adeeg waxbarasho, cunno, biyo iyo hoy. Waxay carruurta weydiisay intooda rabta in ay adeeg waxbarasho helaan, waxaana ay ku tidhi gacanta taaga. dhammaantood carruurtii gacmaha ayay kor u taageen, waxaana taasi ay muujinaysaa in carruurtani ay doonayaan nolol dhaanto midani. Biryaanka ayaa waxay doonaysaa inay kor u qaaddo wacyiga ku aadan dhibaatooyinka ay la kulmaan gabdhaha yaryar iyo kuwa qaangaarka ah. Biryaanka waxay tidhi waxaan la kulmay gabdha yaryar oo badan oo si arxandarro ah loo kufsaday. Gudniin baa loo geystaa. Gabdho badan ayaa waxay arkayaan walaalahood oo la gudayo, waxayna isku dayaan inay halkaa ka baxsadaan. Waxa ay sheegtay in ay la kulantay gabdho 16, 14 iyo 15 intaba jira, waxayna iiga sheekeeyeen bay tiri waxyaabihii soo maray. Runtii aad baad uga naxaysaa markaad aragto gabar yar oo 14 jir ah oo ilmo yar sidata. And my spirit to see a 14-year-old carrying a little baby. Biryaanka waxay nala wadaagtay oo ay nooga sheekaysay waayo aragnimadeeda, waxayna rajaynaysaa inay malaayiinka qaxootiga ah xaaladda ay ku nool yihiin wax laga bedelo. Biryaanka waxaa kale oo ay sheegtay xalka ugu horreeya ee wax lagaga bedelayo xaaladda qaxootiga malaayiinta ah in ay saaran tahay muwaadiniinta dalalkooda. Run ahaantii anigu ma ihi xubin siyaasadeed oo sharci ma soo saari karo ama ma bedeli karo aragtida siyaasiyiinta, balse waajibaadka ay saaran ayaa waxay tahay inaan door ka ciyaaro waxyaabaha waqti xaadirkani aadka muhiimka u ah, in aan ictiraafno in ay jiraan carruur tiro badan oo ku sugan xaalad aad u adag iyagoo aan waxba haysan, biyo nadiif ah ma haystaan. walwalka ugu weyn ee nahayana waa ka wahagaaga caddowaad buu mahadsan yahay. markana iyadoo dhowaan uu si rasmi u bilaaban doono ciyaaraha koobka adduunka ayaa waxaa markaasi shaac laga qaaday garoonka ugu weyn ee martigelin doona ciyaarahaasi, waxaana lagu magacaaba Luzhniki, waana garoon ku yaala magaalada Moscow ee wadanka Ruushka. waxaa la sheegay in garoonkaasi uu martigelin karo halkii mar 81,000 oo qof, waxaana la sheegay inuu yahay mid ka mid ah garoonada ugu waaweyn ee imika martigelinaya ciyaarahaasi. markana sheeko kale oo xiiso badan oo ka dhacday wadanka Mareykanka, macallin markaasi maxkamad la geeyay kadib markii uu isku qoodiyay 2 xayawaan. saxan ayaa sheekadaasi isoo soo mariyay studio igula sugan. Bashiir waa mahadsan tahay. labadan xayawaan waa qube iyo eeywe. macalinkan dugsi sare ayuu dhigaa, ardada hortooda ayuu labadii xayawaan oo midna baahan yahay midna xanuunsan yahay isku qoodiyey oo midba midka kale uu cunay. eygii baa cunay. marka waxaa dhacday Mareykanka haddii lagu xukumo oo la helo arrintani 6 bilood oo xariga ama $5,000 ayuu mutaysanaya. ilaa 200,000 oo qof ayaa saxiixday codsi mise arji booliska loo gudbiyo oo ah in ninkan la xiro. hase yeeshee dad kale ayaa jira u ololeynaya ninkan, waxayna leeyihiin xadgudub ayay xayawaanka ku tahay in dhibaatadani la sameeyo. ninkan waxaa la sheegay inuu xitaa masaska oo guriga ku haysto, caruurahana uu ku sheego in waxan ay tahay wax dabiici ah oo xayawaanka is cunaan. hase yeeshee dad badan oo waalidiin ayaa u arkay inay arrintani tahay arrin xadgudub ah oo ardada aan loogu talagelin. aad baad u mahadsantahay saxan saxo. inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaya idaacaddii subaxnimo oo uu soo saaray Cabdiraxmaan Xaaji Cadow, waxaan idinla socodsiinaya aniga Bashiir Maxamed Caata. dhanka farsamada waa Mubaarak. tan iyo 2 duhurnimo intaanu dib hawada u kulmi doono, waxaad sidoo kale warar kale baad ka daalan kartaan barta internetka ee ku leenahay bbcsomali.com. inta ka horeysa nabadgelyo.